السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونكسن لهانتين با كسر دوادة تي في جلس ورئيس ندين كقعدني مدن الشيخ تاخ وجانك عشان ديك تبهد ودني كحرين توجدنيا ورئيس قاسو ينوسو دياري وريهنا محمد دويل تاوشوا عن kulantuucan oo wanaagsan daawadayaasha iyadoo meel kaste iyo si kaste oo aad nooga daawanaysaan dunida dacaladeeda halkani waa Ilays TV. Ilays TV maanta hadduu eebaha awood leh ogolaado waxa aan ku wareysan doonaa Sheekh Deeq Maxamed oo ah hogaanka gaashaandhigga ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya. waxa aan hadduu eebaha awood leh ogolaado ka wareysan doonaa xaaladda dhabta ah ee shacabka iyo dalka Ogaadeniya. goordhaweyd wuxuu Sheekh Deeq naga soo booqday gudaha Ogaadeniya isagoo oo muddo halkaasi ka soo shaqeynayay. waxa aadna kaga bogan doontaan wareysigan hadduu eebaha awood leh ogolaado su'aalo fara badan iyo xog fara badan oo aad tabaysaan daawasho wanaagsan. Sheekh Deeq ku soo dhaw Ilays TV. waan dhawahay waad mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal ugu horeyn waxaad naga warantaa xaaladda dadka iyo dalka Ogaadeniya haatan meesha ay marayso. bismillaahir rahmaanir rahiim. horta waa xaalad ballaaran. Ogaadeniya haddii la yiraahdo laga warbixiyo waa xaalad ballaaran. hase yeeshee waxaan u qaybin lahaa laba arrimood. waa mid oo waa cadowga wadanka haysta ee gumaysiga iyo xaaladiisa. midna waa shacabka iyo xaaladiisa iyo jabhadda xaaladeeda oo labadaasi waa laba arrimood oo ishuwan oo aan kala marnayn. shacabka xilligan lagu jiro waa shacab dulman oo la gumaysto. wuxuu u badan yahay xoolo dhaqato. boqolkii 80 baa xoolo dhaqato ah. laba nooc way marka shacabka Ogaadeniya. qaar ku nool magaalooyinka oo shacab madani ah iyo qaar ku nool baadiyaha. marka dadka xoolo dhaqatada ee baadiyaha ku nool ayaa badan. dadka noloshoodu waa nolol gaar ah, waa nolol xoolo dhaqato, waa nolol baahina la xiriidho. mar haday xoolo dhaqato yihiin waad iska garan kartaa gumaysin ay ku jiraan. dadna waa dad madani hore magaala. dadka reer magaala noloshooduna waa mid hooseysa. mar haddii wadankii dagaalna ka socdo cunaqabatana ay ka jirto gumaysi aan u naxariisanaynin oo soo jireen ahana uu haysto iyaga naftoodu waa nolol ciriiriya. Sheekh Deeq shacabkii laba hadii aad kala qaybisay kuwii magaalada iyo kuwii miyiga muxuu noqonayaa xiriirka ka dhaxeeya miyigii iyo magaaladii labadii shacab ee kala noolaa? ma kala maarmaan oo waad ogtahay oo dadkeena xoolo dhaqatada aanay iyo u baahdaan kuwa magaalada jooga. kan xoolihii baa banaankii jooga. beertu baadiyaha ka baxday magaalada kama dhaxbaxdo. wuxuu wadanku leeyahay kala kheyraad kaleeto oo fooxi buu leeyahay. xaabadii baa jirta. marka waxa weeye ma kala maarmaan. ninka geela la joogay de kan magaalada jooga laga yaabo inuu aabihi yahay. marka labada shacab noloshu ha kala duwanaato oo kana cadowgii buu gudaha ugu jiraa kana waxoogaa chance fursad uu helayaa inta badan jabhadana gacanta ugu jira. xoolo dhaqatana uu yahay oo wuxuu joogaa goob waasac ah. intaas ku kala bedelan yihiin laakiin sida kale waa isku mid. marka aan eegno ka magaalada iyo kii miyiga gumaysina labadii wada haysto muxuu noqonayaa saameynta uu ku leeyahay kan miyiga iyo kan magaalada uu ku kala yeelanayo ay ku kala duwan yihiin maxay tahay? way kala duwan yihiin. taayada aad bay u kala duwan yihiin. tan waa dad la go'doomiyay. waxii soo gali lahaa baa la ogaanayaa. waa magaalada oo hadday tahay gaadiidkii baabuurta hadday tahay iyo hadday dhaqdhaqaaqooda kala tahay badee cadowgii bay la falgalaan oo la degan yihiin oo cadowguna culays badan buu saaray. laakiin ruuxan baadiyaha jooga dhul ballaaran oo waasaca ayuu ku nool yahay. marka noloshiisan dhibka badan ee ku tiirsan xoolaha nool oo hadday abaari ku dhacdo dee khatar galaya intaa mooyeena xagga kale nolol ahaan waa iyo istiraatiiji ahaan wuu ka yar duwan yahay oo ka yar waasacsan yahay. marka saas uu kala duwan yahay. guud ahaan Sheekh Deeq markaad isku soo duubto nolosha shacbiga Ogaadeniya miyi iyo magaalo midka doonaan ku noolaadaan markaad sawir ka bixiso kooban nolosha shacbiga Ogaadeniya maxay noqonaysaa? sawir noocee ka bixinaysaa? waa mid hooseeya
shacabkani ma laha nolol ballaaran. waxaa ka mid a nololaha dadku inay si xor u ganacsadaan, inay iyagu sidooda u madax bannaanaadaan, ruuxani inuu wuxuu doono ka shaqaysto. ma jirta taasi. dhulkuna waa dhul goodoon oo aan dhisnayn. waad la socotaa dee dhulka wadooyin ma laha. hal jid oo jabhaduna ay ku tala gashay hantidan ay Etoobiyaanku boobayaan inay haddii ay wuxuun dadka ku qancin karaan inay ay hadday ka hambeeyaan wax ku dhisaan iska caadi ah, oo intay ka soo baxdo magaalada Jigjiga u soo dhaqaaqday koonfurta Ogaadenya. halkaa jid baa mara wadanka, inta kaleeto waa dhul iska go'an. waxaa kaloo iyadana laga cunaqabateeyay dhankii xuduudihii, oo shacabkan waa shacab Soomaali ah, wuxuu la noolaa shacabka Soomaaliyeed. Soomaaliyana waad garanaysaa dawlad awood leh oo xoog leh oo xuduudaheeda ilaashato oo nolosheeda daryeesha shacabkan. ma ay jirto dadkii Soomaaliyeed isaga qaxootiga iyo ku maqan bayhoofka banaanada. marka waxa ugu xigay ehelka waxaan hadduu Soomaaliya u yahay, shacabkiina sidan u go'doonsan yahay, waxa haystaana gumaysi aan walibana ilbax ahayn oo hooseeyo isaga laftiisu baahan oo Afrikaan oo dhibban u yahay. hadda adiga laftaadu waad garan kartaa noloshaasi waxa ay noqon karto. waa tahay shaqad markaan dhinaca miyiga aan ku laabano Ogaadenya waxaa jirtay ama jirtaba xoolaha nool oo aad looga dhaqdo, sida adiga carabka aad mariso macnaa dadkii ay dad yihiin reer guuraa haddana xoolo dhaqataa boqolkiiba 80 iyo in ka badan. geela, lo'da, ariga yaa ka mid ahayd wixii la dhaqan jiray. ma jiraa wax isbedela oo ku dhacay dhinacii xoolaha? haa, wuu jiraa. wadanka waxaa ku badan abaaraha, xoolaha nuulkii way naafteen, geela laftiisa dhib baa gaadhi. hase yeeshee geela wuu ku dhaqan yahay Ogaadenya, xoogna wuu ku leeyahay. ariga laftiisu waa wax iska tarmi og, wuu joogaa isaguna si xoog leh ayuu u joogaa arigu. balse waxaa aada u hooseeya xoolihii kaleeta sida fardaha iyo lo'da, aad bay u hooseeyaan, wayse jiraan iyaga laftooda. waa tahay dhinaca kale waxaa jirta xilliyada roobka uu da'o kale dogaadii ah beero iyo muxuu ahaa wax la beeran jiray. ayaga wax isbedela iyo xaaladdu halkay hadda maraysaa oo maxaa isbedelay, maxaa soo kordhay? si weyn buu isu bedelay. mar haddii abaarana ay jiraan, tasiilaadna uusan jirin. wadanka horta dhul ahaan waa dhul khayraad badan. waxaa mara 4 webi. wuxuu leeyahay wadanku shidaal, macdan buu leeyahay, xoolaha nool baa kamid ah khayraadka rabbaaniga. foox buu leeyahay oo wuxuu leeyahay xabaghadi buu leeyahay, waxyaabo badan buu maartay wadanku leeyahay. hase yeeshee wixii sidaa ahaa waxba kuma taala mar hadduuna dadkani ayna ka faa'iideysan kareynin. webigan hadda ka soo qaad webiyaasha dhexmara wadanka, intay biyahaasi ka tagaan wadanka Ogaadenya bay gobolada dariska ay galaan, hataa kuwa dariskaan ka faa'iideysan kareynin. marka isbedelka cimilana mar walbana dhib weeyadana ayuu ku keenayaa shacabka. waa tahay dhinaca xabagta iyo fooxa aad ku dhufatay. markii la eego waxaad sheegtay hadda su'aasha waxaad ku sheegtay inaysan jirin wax soo gala oo baabuur iyo ganacsi oo soo gala dhulka Ogaadenya. see bay noqonaysaa macnaa ka faa'iideysiga fooxa iyo xabagta khayraadka macnaa dhulka ku yaala? maxay noqonaysaa qaab noocee uga faa'iideystaan shacabka? kamaba faa'iideysan karaan. haddii uu jirana waxaa dhici karta wax yar intii la helo inay sharikaad ajnabi oo siiba Etoobiyaani ay isticmaalaan. waa wax dhaca. hase yeeshee dhinac buu wadanku ka barakeysan yahay, kana wanaagsan yahay. mar haddii jabhadii ay joogto wadankii, awoodna ay ku leedahay inay khayraadka la boobo, way adkaatay. waad la socotaan oo shidaalkii hadda cid kastoo isku dayday waxba way ka qaban weyday. shacabkii wadanka lahaa iyo jabhadii wadanka lahayd iyo hantidoodii oo kayd u ceegaagan unbaa meeshii ku soo haray. cid kastoo soo hanqal taagtay ama hanti badan ku bixisay ama loo been sheegayna way iska huleeshay oo meeshii way ka tagtay. waxaa jirta cunaqabatayn 6 sano jirsatay oo saaran dadka iyo dalka Ogaadenya. xaggay maraysaa cunaqabatayntii? waxaan ka taaban karaa iyadoon jeclahay inay qodobadii horeba ay ku jirtay. gaadiidka hadda ka soo gala Soomaaliya, saad la socoto Soomaaliya xeebay leedahay, dekeday leedahay. ganacsiga Soomaaliya waa mid iska furan, haba tabar yaraadeen. hadday noqoto inuu Ogaadenya galo waa la diiday. hataa hadduu wax ka soo galo meelaha qaarkood yaa waxaa laga sameeyay wax la dhaho jibri. waa in halkaa lagu hantiya hantidii la tiriyo, la xisaabiyo,
wax badan oo canshuura la saaro ciidanna lagu daro kanvoy ay wayaanuhu leeyihiin iyo la isku daro hantidii sidaana ay meelaha qaarkood ku gaadho oo de haddaan ku idhaahdo wadankii waxba ma galo waxaa laga yaabaa inaad tirahdo warshada ma lehe dadku miyay qaawan yihiin oo xaaladdu markas ay tahay dadkii waxbuu xidhan yahay oo meeshii way qaar baa arad baxsan qaar baa iska aradan ama wayba arad baxsan yihiin intooda badan baa la odhan karaa waxaasi marka wuxuu ku iman karaa laba arrimood waa mide dad iyaga u adeego oo ganacsata iyagu ay leeyihiin shatina leh canshuur adagna laga qaado iyo saadka ciidamada maaragtay gumaysiga wadanka jooga yaa si wada jir ah u soconaya halkaasaa marka yaa lagu kala farsamayn waxaad arkaysaa meelaha qaarkood iyadoo halkaa lagu soo canshuuray gaarigii waxa yar ee bagaashka waday meesha kalena lagu soo canshuuray 3 meelood in haddana qole la yiraahdo kontrabank ay la diriraan oo finance kuwa la yiraahdo inay haddana la wareegaan wixii oo baabuurkii iyo hantidiiba la qaato taa waxa marxaatu ah iska daa ku ogaadeeye wadamada dariska inoo ah waxa ka yimaada baabuurtooda jigjiga ku go'doonsan iyo kuwa meelaha kale taqallaafa xilligan xaaliga baabuurta ka tagtay gobolada koonfureed ee Soomaaliya xilligan xaaliga inta halka custom ka sameeyeen Jibri ayaa la wareegaa say badeecad u socotay shaqada shacabkii oo cunqabataysan waa dhibaato waa xaqiiqa laakiin dhibaato kasta markii ay ku soo wajahdo waxba laga bartaa waxba ama laga faa'iidaa ama khasaare laga gaaro maxay tahay waxa laga bartay cunqabatayntii isbedelka ah ee laga faa'iiday taas maxay noqonaysaa iyada waxa laga faa'iidayaa wax la dhaho isku tashi kolkaad aragta marxaladda taagan dadkana ay sidan yihiin dadku waa wax garad iyaga tashanaya qaabkay noloshooda u maareyn lahaayeen bay go'aamiyaan markaad mid iyo laba soo qaadato waxyaabaha ay qorshaysteen ee ay isugu tashadeen ee ay oga baxeen cunaqabatayntan maxaa ka mid ah cunaqabata horta kama baxsana laakiin haddana dadkan horta ilaahay baa abuuray isagaana irsaaqay ma aha macnuhu inay haddana iyagu ay ku tala galeen cadowgu inay dadkani baktiyaan 3 arrimood inay mid u noqdaan bay dadka ugu tala galeen cid iyaga isu dhiibto askari u noqota iyo cid cararto oo wadanka ee ka tagta iyo cid intay xidhaan jeel ku jirto oo gacantooda ku jirta inay arrimaha badan bay dadka ay ku mashquuleen mar hadday taasi ay taagan tahay arrimaha qaarkood sida hadda raashinka oo gala baxaan magaalooyinka sida ay wadooyinka intay si degdeg ah wax uga la degaan ay u qaadaan arrimaha waan taaban karaayo sidaa weeye qaar kamid ahana de waa waxyaabo u gaaraba oo aan falanqeyn badan u baahnayn oo cadawgana wuxuu yahay mid aan xariisanaynin inta badanna ku dadaala inuu xoga dheeriyaha ka helo qaab nololeedkooda waxaad ka warantaa abaaraha xilliyada abaaraha saameynta ay ku yeeshaan dadka iyo dalka ogaadeynaya gaar ahaan xoolaha iyo dadka abaar hadda waad garanaysaa oo waxyaabaha ugu dhibka badan bay ka mid tahay mar haddii xoolo dhaqato dadku u badan yahay xoolihii way dhimanayaan markay daaqii iyo biyihii waayaan dhirtu way baaba'aysaa haddii meel beer golleedii iyo meelo dooxooyin iyo suda yaryar oo la tabcanaya ay jireen haddii ma jirayaan marka de abaar waxa ay geysanaysaa naf iyo maalba way baabi'isaa dhinaca tacadiyada maxay yihiin tacadiyada shacbiga ogaadeynaya ku dhacayay horta waa mid xoog badan waxaan saka xusi karaa xadgudubka waxaa ka mid ah ruuxan bini aadamka ee nool inaad horta noloshiisaba aad diido iyo in haddii uu si xor ah u hadlo ama uu dhinto ama loo xidho waxaa jira jeelal caan ah oo magac badan 8 baa ku yaala magaalada Jigjiga haba kala magac dheeraadaan xeryo military waxaa jira haddana si gaar ah dadka loogu xidho hadda garab case waa goob tababar oo waliba ciidan jeelal baa laga dhex samaystay halkaas dadka lagu ciqaabaya ciqaabka kulul ma garanayno dad laga yeedhsiinayo intii la jir dilo bahaa'imta ama xoolaha aan wax ka dayan jirin kuwa intii la qaawiyo la garaacayo kuwa dhagax lagu dilay waxaan xusuustaa meesha la yiraahdo dhaba jiriso dad xoolo dhaqato halka degan yaa ciidan baa soo duulay
ciidankaasi reer baadiyaho halkaa bariisan bay weerareen goormay xilligaas waxa weeyaan muddo hadda laga joogo 3 bilood ka hor halkaas waa dhaba jiriso oo u dhow degmada Birqod ee gobolka Dhagaxbuur waxaa reerkii markii la weeraray dhagaxaan baa lagu dilay 8 ruux waxaa kamid ahaa 4 xerow oo ka soo baxay magaalada Dhagaxbuur halkaana reerkoodii fasaxi kutubtu markii ay loo joojiyay sheekhu istaajiyay maalmo inay soo booqdaan ehelkoodii waana la yaqaan waa la diiwaan galiyay waxaana isleeyahay dadkeenu si fiican buu ogyahay ay marka dadka dhagaxa ku leenay dadka waa ciidamada Itoobiya ciqaabka culus waad garan ruux xabad waa lagu dhuftaa dadka qaar baa binad lagu dili waxyaabaha laakiin ciqaabka cajiibka hadda waxaa kamid ahaa tan dhagaxa lagu diliyo dhagaxaas oo waliba kamid ah qaarkood aqalka gudihiisa dhaarka ku jira laakiin sheekh waxay dadka qaar isweydiin karaan ciidankii soo qoriyo wata oo xabad wata way ugu dilayaa dhagax ugu dilay in iyaga la weydiiyaa fiican wayba hubaysnaayeen be iyaga in la weydiiyo laakiin dhacdadu in dhacdeen baan anagu hubnaa waana mid hadda marag iyo marxaati ehelkii baa jooga hebel ah oo la garanayo ma aha mid intay cid iska sheegato sida loo sawiri karo in adinka idin soo gaarin way dhici kartaa laakiin waa mid hubaal oo dhab oo dhacday waa tahay marka aan u leexano dhinaca jeelasha oo aad arab ku dhufatay jigjiga hadda arab ku dhufatay jeelashu ma jigjiga kaliya ka jiraan mise dalka gudaanta way ka jiraan way badan yihiin wayna ka jiraan balse waxaa jigjigayaan arabka gaar ugu godnay dee way si weyn bay u dhisan yihiin jeelasheedu kuwa kale waxay u badan yihiin meelo kooban ama xeryaha ciidanka oo guryo ciidan intii lagu qufulo oo lagu xabiso halka dadka lagu haynayo sheekh Dagow jeelasha Itoobiya waa dawladna jeelal way leedahay jeelashana dad kala duwan oo far badan baa siyaabo kala duwan loogu xidhaa maxaad ku duraysaan idinku jeelashan dadka lagu xidhayo waxa aad maxaad ku duraysaan horta jeel marka la leeyahay ama meel xabsi ah in dadka lagu xidho diyaariya dawladina yeelatana waa iska caadi waxa diidan arinta aynu ku dirayna waxa weeye hadduu ruuxan yahay ruux dambiile ah oo fal dambiyeed sameeyay oo ama dhiig islaam gale ama dad laayay ama hanti dhacay hadda in la xidho ruuxan waa caadi laakiin adigii oo dhulkaaga iska jooga inaad ruux ahaan shakhsi ahaan lagu xidho oo lagu waxitaa way mid keenaysa dadka maxaa lagu xidhayaa marka waa maxay waxa dadka loo xidhay xuye waxa kamid ah waxa loo xidhay uu badan yahay waxa kamid ah qaada fikirkanaga waa mid waxa tahay oo lafna waa kamid oo una ruux baahanba haduu xataa yahay oo lafnimadu ma aha dambi waa hadaf siyaasi shacabkana iska leeyahay dhulkan baa yaa iska leh waa tahay hala xidho jeelashana hala ururiyo marka aad sawir ka bixiso inta aad xog ka hayso markii la xidho dadka jeelasha ay ku jiraan qaab nuucay abaa loola dhaqmaa jidil baa lagu sameyn cuntada lagu yareyn qaar baa naftu kaga baxday sidii loo jirdilay oo ku dhintay oo la yaqaano oo badan kuwa ku nafbaxa oo kale maxay tahay sababta ugu nafbaxayaan ma jirdil bay u dhimanayaan ma si kale oo caadi ah soo dhimanayaan maxay tahay sababta ay u dhimanayaan haddii aad wax ka sheegto inta aan anagu ka maqal ama aan ognahayba haddii ruuxa hadda waxaan ka hadlayay in dhagxaan lagu dilay haddii bud ruuxa lala dhaco ama laad nin ciidan ahoo kaba waaweyn xiran oo la dhaco ama maaragtay intii uu xanuunsada la daaweyn waayo intaa waxay noogu dhan waraysigan idinka soo qaadnay hogaanka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya mudana Sheekh Deeq intaanu barnaamij kale ku kulmayno waaniga oo xigma iyo dhammaan bahda ilayso idinka tagayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh